waxaan u ballan qaadaynaa guddiga gurmadka qaran ee lacagta aruurinaya in 1 milyan oo ay ballan qaaday dowladda federaalku akoonkiina lagu soo ridi doono ugu dambeyn maalinta khamiista haddii ilaahay raaco. waxaa loo turjumaa marka siyaabo badan qaraxii meeshaas ka dhacay. waxaan rabaa anigu inaan caawa idiin sheego fikirkeyga. qaraxaasi sida uu sheegay madaxweyne cabdiweli waxa uu ka bedelay wax qaab fikirkeyga aniga qof ahaan. waxaa ii soo baxday inay jiraan cadow Soomaaliyeed oo dadkeena ah oo annaga nagu dhex jira oo go-aan ku gaaray in la xirib tiro ummadda Soomaaliyeed. waxaa ii soo baxay inay jiraan cadow Soomaaliyeed oo noo soo diray fariintii ugu dambeysay oo ahayd waxaan go-aan gaarnay inaan dunida idinka tirtiro. si kale oo aan garan karo oo lagu qeexi karo ma jirto in gaari qaraxa lala beegsado meesha xamar uu shacabka badan oo lagu laayo boqolaal qof oo Soomaaliyeed oo aan dowlad ahayn oo aan ciidan ahayn oo shacab Soomaaliyeed oo maata ah oo isugu jira rag iyo dumar, carruur iyo ciroole. fikirkeyga cusub marka waxa uu yahay horena aan u sheegay qof walbo Soomaaliyeed oo halkan fadhiyana caawaan rabaa inaan u sheego iyo kuwana daawanayo wax walba oo hore loogu yaalay waxaa yimid wax ka weyn. sababtu waxay tahay qof walbo halkan jooga caawa waxaan idiin sheegayaa inay jiraan kuwa idinku xukumay inaad tihiin dilsugayaal. markaa laba dariiq unbaa kuu furan inaad aqbasho inaad noqoto inaad dilsuga noqoto iyo inaad tiraahdo haddiiba aan dil xaqdarro ah ku xukumanahay waxaan qaadanaynaa dariiqa culimmadeena suubani noo sheegeen oo ah haddii adoo la dagaalayo aad ku dilaana ahlu janna, hadday ku dilaana ahlu janna. saas ma dhihin sheekh nuur baari saasaad tirahdeen soo maa saasuu ilaahay noo sheegay. macnaheedu waxa ay tahay maba lihin fursad aan ahayn inaan iska celinno, haddii kale waa inaan guryaheena ku sugnaayo noo yimaadaan ina dilaan. dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan markay ku soo baxeen oo ay dariiq walba u soo baxeen xamar, haddii aad degan tahay Hulwaa ama Daynila, qaraxaas markuu dhacay qof walbo Soomaaliyeed banaanka ayuu u soo baxay isagoo leh dooni mayna shabaab. jidadka xamar waxaa la waayay meel laba. marka waa run waxaan soo dhaweynayaa fikirka sheegaya ummaddu kama soo hor qabto hoggaankeeda. waxaan rabaa inaan shacabka Soomaalidu sheego haddii aan waagii hore aaminsanayn inaan haysanno waqti badan, waxaan ka baranay qaraxaas inaanan waqti haysan. in waqti la isku khilaafo damba aanu harin oo macnaheedu ay tahay qof walboo Soomaaliyeed oo naga mid ah oo raba inuu ka badbaado xukunka lagu xukumay oo ah inaad ahaato dilsuge inaan dulqaad ka badin oo aan aqbalno inaan isku qasbannahay oo aan aqbalno sida keliya oo nagu guulaysan karno inay tahay in annagoo isku duuban aan wajahan.